Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti waana wanaagsan dhammaan daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta joogtaan. Waqti kasta idin tahay waqtigu idin wacnaado. Badbaadiya naxariista ee bana korkiina ha ahaato. Waa aniga Mustafa Xasan Maxamed. Halkaad igala socotaana waa Mustafa TV channel. Insha Allahu tacaala waxaan bilaabi doonaa siiradii nabigeena Maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi taariikhdiisii. Kusoo dhawaada casharkii koobaad insha Allahu tacaala. waxaan ku horeynaynaa abtirsiintii nabigeena Maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi. waa Maxamed binu Cabdillaahi binu Cabdilmudalib binu Haashim binu Cabdimanaaf binu Qusay binu Kilaab binu Murra binu Kacb binu Lu'ay binu Qaalib binu Fihr binu Maalik binu Nadar binu Kinaana binu Khuzayma binu Mudrika binu Ilyaas binu Madar binu Nazaar binu Macad binu Cadnaan. intaas waa abtirsiinta nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam ee waxa weeyaan saxiixa ah. waayahay Cabdilmudalib waxa uu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam awowgii. waxa uu ahaa odayaasha ugu waaweyn Quraysh taliya, kaasoo waxa weeyaan xaliya mushkiladaha taladana gooya. marka wuxuu ahaa odayaasha waaweyn ee Quraysh. waa Maxamed binu Cabdillaahi binu Cabdilmudalib. Cabdilmudalib caruurtiisa waxa ugu jeclaa Cabdillaahi oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii. Cabdilmudalib caruurtiisa waxa ugu jeclaayo dee nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii oo ahaa waxa weeyaan Cabdillaahi. waxau dabeetana u guuriyey inankiisa Cabdillaahi oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii. Cabdillaahi waqtigaa da'diisu waxay ahayd 18 sano ayuu jiray. Cabdillaahi oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii waxaa loo guuriyey Aamina bintu Wahab binu Cabdimanaaf binu Zuhra binu Kilaab oo ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii. waxay ahayd Aamina dumarka Quraysh ugu sharafta badan nasab ahaan iyo deegaan ahaanba. Cabdillaahi binu Cabdilmudalib oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii waxau la aqalgalay Aamina bintu Wahab oo ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii. Cabdillaahi oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii ma uu sii noolaan ee waxa u timi geeridii tii xaqa ahayd ayaa u timi dabeetana waa uu geeriyooday. Cabdillaahi intii aan waxa weeyaan geeridu haleelin
waxa uu safar tijaaro ah uga baxay ardu Shaam, halkaasoo ay degenaayeen abtiyaashii. markii uu gaadhay Shaam waxaa haleeshay geeridii ayaa haleeshay Nabiga sallallahu alayhi wasallam. dabeetana aabihii Cabdillaahi waxa uu ku geeriyooday Shaam ayaa uu ku dhintay. waxaa lagu aasay abtiyaashii agtood, abtiyaashii oo ahaa reer Bani Cadi binu Najaar. Aamina bintu Wahab 9 bilood kadib waxa ay umushay Nabiga sallallahu alayhi wasallam. dariskeena maanta halkaas ayaa inoogu joogayaa. wixii aan asiibay ee aan saxay fa min Allah, wixii aan gafayna aniyo shaydaan bay ahaatay, nafta iyo shaydaan bay u ahaatay. intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.